بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كينا هرومركا بلشدا وانو مانتا كسو قادنينو cudurka TB-da ama qaaxada qofka sidoo u yaqaano. Daawadayaal barnaamijkeena waxaa maanta inoogu ah Faadumo Cabdulaahi iyo Maateen oo labadooduba ah laba doctor. Faadumo waxay ka shaqeysaa public health oo ah qaybtan Solihull. Maateen isaguna wuxuu aqoon dheer u leeyahay cudurka TB-da isagoo 10 sanana ka soo shaqeeyay wadankaasi South Africa. Daawadayaal cudurkan oo ah cudur dilaaca ayaan waxaan jecelahay maanta barnaamijkeena inaan ku soo qaadano ama barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay cudurka TB-da. Marka Faadumo waxaan rabaa maanta inaad noo sharaxdo cudurka TB-da waxa uu yahay. maadaama ay dad badan aqoon cudurkaasi waxa uu yahay. No problem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إفراح. TB-ga xanuunka TB-ga la yiraahdo ama qaaxada la yiraahdo waa xanuun khatar ah. وانا حنون هودا لغو كلا قادو يا marka dadka si sahlan bay u kala qaadi karaan TB-gana waxa keena bacteria la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis qofka cudurka qaba markuu ag joogo qof aan qabin xanuunkaasi uu ku aqfaco ama ag hindiso ama qoslo ama ag joogo had iyo jeer xanuunkiibu gaarsiin kara qofkan kale. marka TB-da macnaheedu waa disease ku jira gala dadka disease dadka gala waxaanu naqaska la socota hawada la socota taasina waa TB-ga samabada ku saabsan waa TB-ga wuxuu geli karaa kaliyaha lafaha maskaxda meel fara badan laakiin ka samabada un baa la kala qaadi karaa. imsa nooc ay qaaxad u kala baxdaa cudurka la yiraahdo TB-da imsa nooc buu kala baxaa TB-ga waxay u kala qaybsantaa laba nooc waa latent TB ama TB-ga jiifa ama TB-ga hurda. TB-gaas wuxuu leeyahay qofka jirkiisu galaya laakiin awoodaadii ayaa meel ku xidhaysa kama muuqanayso calaamado ma yeelanaysid laakiin dhiigaaga ku jira TB-ga xanuunkaasi. nooca labaad waxaa la yiraahdaa active TB ama TB-ga firfircoon taasi waa TB-ga runta ah oo calaamadihiisu leeyahay waana la kala qaadi karaa. haddana waxaa khadka ku jira Cabdulaahi oo raba inuu su'aal weydiiyo dhakhtarada. Assalaamu calaykum Cabdulaahi ku soo dhawow barnaamijka su'aashaadana waad soo gudbin kartaa. والله ما سنت دمانتي والسلام والله وحنا تختلك إلى ودي جواد دمانتي والسلام وحنا بسأش عودوال المير أو كل سنة يبقى دي كيف كل عضو ويستهلك وكل تقدير تدو ويقفز على بيش وكيسني في تركيز المحاط وخصوص بتقدير تدو ومشي بس كل ما walaalo ma waxa tiri waxa TB-du ku dhacday cunug yar oo sanad iyo bar jira marka dawooyin miyuu qaatay dawooyin iyo kala istarka la geeyay waa dawooyin waxyaalaha loo qorsheeyay dawooyin waxyaalaha noocaas marka su'aashaadu maxay tahay walaalo hadii yani inaan dhakhtarka uu aad weydiiso su'aasha waxa qofkaas marka uu ku soo noqonaysaa mise waa dhamaatay marka uu ku soo noqonaysaa laga yaabo qofka okay waxaan ku gudbinayaa Dr. Faadumo si ay kaaga jawaabto su'aasha. okay أنا وأنا أتجاوب الدكتور كهلي أكبر لنا وأنا أشيء حال لبدينا بيان laga yaabo qofka haduu ilmihiisa si fiican dawooyinka u siiyo oo dhamaysto waqtiga loogu talagalay xanuunku way ka tagaysaa inta badan waxay ku xiran tahay xanuunkiisa iyo ayskiisa laakiin inta badan 6 bilood ilaa 9 bilood ay noqon karto intuu qaadanayo iyo meesha ku yaalina uu ka xiran tahay xanuunka meesha kaga dhacday xanuunkaasi marka haduu dawooyinka si fiican u qaato dawaa ka tagtay xanuunka isagoo qof kale la kulma oo xanuunka qaba mooyaan si kale ay ku soo noqoto ma jirto dawooyinka hadii si fiican u shaqeeyaan xanuunka yani bakteeriyada jirkiisa ku jira way baabiinaysaa ya marka wax ku soo noqonaya ma aha kan kalena sheeganay TB-ga jiifa waa mid hadhow soo baraarugi kara laakiin marka la daweeyo isna uu baabaaya marka laga hortagi kara marka dhakhtarkan baan imika isna u sheegay waxa uu turshabi isna jawaabkiisa isna ha sheego. So if the child has finished the TB treatment the TB will be gone and the chance of TB coming back is very small. There should be no long-term consequences in the child but if he is worried and if symptoms occur like the child starts to lose weight or gets fever or gets a cough then he must take the child to the doctor straight away. Okay. But in short if you take the treatment the TB goes the child will be better and no long-term consequences.
haddii aad dhageysanayso dhakhtarku wuxuu yidhi haddii uu ilmaha yar dawadiisa uu qaato sidii loogu talagalay adigu aad u siisidood ku ilaalisid jaaniska uu ku soo noqonayo way yar tahay haddiise uu ku soo noqdo waxay noqonaysaa in uu ilmaha yaroo kale uu yeesho xumad ama qandho in uu miisaankiisa uu hoos u dhaco marka haddii aad ku aragto calaamadahaasoo kale waxay noqonaysaa inaad ku celiso dhakhtarka oo baaritaan dib loogu sameeyo laakiin hadduu dawadiisa qaatabu dhakhtarku aad bay u yartahay jaanis ah inuu kusoo noqdo cudurku marka khadka telefoonka ayaa laynoogu jiraa cabdiqaadir kusoo dhawow barnaamijka su-aashaad qabtana waad soo dayin kartaa walaalo su-aashaan qaba waxa waaye anigu 83 ayaa cudurkan tuberculosiga ugu dhacay muddo 3 biloodana dawaan ka qaatay kabacdi dhakhtarkii wuxuu yidhi waad bogsatay dawadiina wiiga joojiyey kabacdi ayaa waxaan dareemay oo jira maqaar xanuunka ah oo maqaarka waaye dhakhaatiir badan ay yidhaahdeen boosameyaashiis waayo marka inay halkaasi ku leedahay iyo kale ayaan weydiin lahaa dhakhtarka maqaar xanuun miyaa tidhi walaalo maqaar xanuun miyaa tidhi maqaarka okay oo dhakhaatiir badan ay yidhaahdeen boosameyaashiis waaye marka waxaad rabtaa inaad ogaato maqaar xanuunkan ku hayaa inuu xidhiidh la leeyahay cudurkii TB-da taasaan u gudbin lahaa dhakhtarka ay marka su-aashaada dhakhtarka ayaan u gudbinayaa waxaad samaynaysaa TV-ga ka dhageysa walaalo maana xanuunkan waxay tii markuu dawoonkiisa dhamaystay wuxuu isku arkay hadda weeyaan waqtiga uu iska daweeyayna waa 83 waqtiga uu dawadan qaatay marka hadda wuxuu leeyahay waxaan isku arkaa inuu maqaarku xanuunayo gartay marka wuxuu leeyahay xiriir miyay la yeelan kartaa okay well that seems unlikely 3 months treatment for TB it wouldn't treat active TB but it would treat latent TB so if he had active TB in the 1980s that wasn't enough treatment if you had latent TB it was enough TB of the skin is very rare and strange sensations in the skin you wouldn't really get with TB you're more likely to get fevers sweating weight loss coughing wuxuu dhakhtarku wuxuu ku yiri 1983 haday xanuunkan kugu dhacday 3 bilood horta kulliba kuma filla qofka markuu leeyahay qaadanin dawo kudii loogu talagalay yani waqtiga yar hadii sir qofka TB-ga jiifa uu qabo ayaa la siiyaa dawo 3 bilooda laba dawo kala shaada la siiyaa laakiin qofka markuu qabo TB-ga firfircoon 6 bilood ilaa 9 bilood sanad xitaa iyo qofka dawoonka qaadanaya marka wuxuu yiri horta kulliba dawoonka lagu siiyay kuwa haday ahay TB-ga firfircoon kuma fileen xanuunka ku hayay laakiin marka maqaarkan xanuunka ku sheegayso wuxuu aniga ila ma aha inay isku xiran yihiin qofka markuu TB-ga qabo haduu maqaarkiisa xanuunaa wax dhacdo ma aha waa wax aad iyo aad u yar waxa dhici karto kale in xanuun kale exactly marka waxay tin dhakhtarkiisa ku noqdo oo yiraahdo dibi baara waxaan rajaynayaa inaad su-aasha dhakhtarka uu sidoo kaaga jawaabay ka bogato marka khadka telefoonka iyo waxa inoogu jirta Samiira salaamu calaykum Samiira وعليكم السلام kusoo dhawow barnaamijka su-aashaadana dhakhtarka u soo gudbi si uu kaaga jawaabo insha Allah walaalo waxay su-aashaydu tahay waxaan leeyahay kulayl fara badan daal fara badan waxay xanuuna cunaha hadii jeer qanjidhada markaas maxaa la yiraahdaa waan weydiin lahaa TV-da miyaan u eegahay qof TV markaas dhakhtarkana haddaan u tago hargabkuna igama baxo hadduu igu dhaco in badan baa hargabku ihaya marka yani waxaad leedahay kulayl iyo dhidid marka dhididkaagu ma habeenkiiba ama maalintiiba sidee yani dhididkaagu waqtigeeba diidaa habeenkii waxaan leeyahay daal iyo jibka oo daalku ka bixin laakiin habeenkii markaan seexdo waxaan leeyahay kulayl badan baan leeyahay marna baan qabowooda laakiin xumadna waan leeyahay ku ficnadihi laakiin waxaan leeyahay oo kale arjaha xanuuna qanjidhada waxay xanuunaa kuwa madax oo kale way xanuunaan haddaan hargabo cunaha yani qanjidhada way sidii wixii barbararaya bay noqonayaan way xanuunayaan xanuun fara badan bay leeyihiin laakiin hargabkuna igama baxo marmar hargabku bil dhan buu haynaya marka daalka waqti walba daalkan waxaad mar walba dareento daalkaygu waa joogto waa daalaa marmar
marmar sidii wax neefta oo kale ay qabanaysaa noqdaa haddaan shaqo iyo waxaa qabqabto wadaaleysaa waan fahmi waaya bas haddaba waxaad samaynaysaa TV-ga kala soco dhakhtaradu si ay kuugu sharxaan su-aasha aad qabto jawaabteeda insha allah. haddaba xanuuno calaamadahan ay Samiira sheegayso way ka mid yihiin calaamadaha TB-ga hase yeeshee haddana waxay noqon karaan xanuuno kale oo u eg marka waxaan ku oran lahaa Samiira waxaa u fiicnay dhakhtarkeeda u tagto ay tiraahdo iga baara TB-ga ha u sheegto ha tiraahdo waxaan u maleynay maybe in TB-ga jirkayga ku jirto intay calaamadaha ay isku aragto kale u sharaxdo si fiican u sharaxdo calaamadaheeda intay haysay inay habeenka diido inay isku aragto oo daro iyo daal aan isku arki jirin waayo waxay la tirwan xiiqay xataa markaan shaqaynayo daal baa isku arkaya marka in dhakhtarka u tagto waayo calaamadaha qura lagama garto qofka historygiisa markuu sheego intay xanuunku u hayay yaa lagu garta xanuunka iyo hadhowta marka la baaro baaritaanka un baa kala sheegaysa xanuunku wuxuu yahay waxaan rajaynayaa inaad ka bogatay su-aashaada haddii uu dhakhtarku uu inoogu darayana wax kale oo sharaxaada waa gooni It's possible. So the things we worry about as well as if this lady was losing weight, and if when she coughed anything comes out, any sputum comes out. But those symptoms are just the sort of thing that you should take along to your general practitioner because there's 101 things it could be, but TB you should always exclude. Okay. waxaan maleynayaa su-aasha inaad ka bogatay siduu dhakhtar kuu sheegay waxaanad markii hore sheegin inuu miisaankaaga kale aba isdhimayo oo haddii de miisaankaagu isdhimayo kale calaamadahan aad isku aragtayna waxay u egyihiin calaamadaha TB-ga waxaana laga yaabaa inay cudurro kale u egi jiraan marka talada ugu badan ay dhakhaatiirtu ku siinayaan waa inaad calaamadaha oo dhan aad u sheegto markaad tagto GP-gaaga ama dhakhtarkaaga si ay kuugu diraan baadhitaan marka khadka telefoonka waxaa ku jirta deeqo salaamu calaykum salaamu calaykum deeqa walaalo kusoo dhawow barnaamijka aan wixii su-aalaad qabtay insha allah dhakhaatiirtu ay kaaga jawaabayaan haye caruurta markay dhashaan yani waa talaalada la siiyo marka hadday talaalka qabaan cudurka TB-du ma ku dhici karaa waxaan kugu gudbinayaa dhakhaatiirta marka si ay kaaga jawaabaan TV-gana kala soco insha allah jawaabta السلام عليكم دقيقة والسؤال وناكسن because إما قدر كنا إنجليز كنا شوقنا إلمها مركز ساعة وصار دعوة وحلوقت طلال يراث BCG vaccination كهرتجا TB وحنا رنتي مركز الشيء طلال ساعة في عن معها وحلا ترجلي إن لسيا عروت يرير وحنا كإلى لسه لبنا نوع TB تمسكح ده كل عذا TB meningitis يو TB كتير كردن وذقلا لبدا بقى خطر يهين المهاير عروتها markaasi marka talaalka laftigiisa wuxuu shaqeeyaa 10 ugu badnaan 15 sanadood inta yara riskiis intuu yar yahay awood yar yahay ayaa laga yaraa ilaalinta ugu khatarsan laakiin aniga anoo yar baa la talaalay BCG haday doon laba jeer bay igu talaaleen wax iga celinayso TB ma jirto qofku ma oran karo ilmahayga talaal baa la siiyay marka uma baahna ama hadda maanta igu talaalo BCG wax iga celinayso ma jirto waxaa loo tala galay ilmaha yar jirkiisa awoodiisa yar inay ka ilaaliso labada nooc ugu khatarsan marka takiliya aanu iskaga ilaalin karo TB waxay tahay in aan ogaano calaamadaha xanuunka aynu ka hortagi karno haddii sharaxdo TB-ga jiifa jirkeena ku jira dawooyinka 3 bilood baa la iska qaata taasoo baabiinaysa xanuunka si aan dib u soo baraarugin khadka telefoonka ayaa waxay inoogu jirta Caaisha salaamu calaykum عليكم السلام walaalo ku soo dhawow barnaamijkeeni TB-da marka su-aashaada soo gudbi insha allah walaalo su-aashaydu waxa weeyaan waxaan qufacayay mudooyinka 6 bilood ilaa June laga bilaabo haye marka dhakhtarku way baadheen waxay baadheen laba jeer waxaa la saaray raajo haye alfooy waa laga qaaday ma idinka lagu yiri cunaha halka aan qasad ahayn laakiin ka hooseysa ay xanuunayso oo iqallalayso daray halkee ku xanuunaysa walaal cunaha halka hoose dhulka ayaa iqallalaysa haye
markaa daray bay noqonaysaa way qalanaysaa asana biyo cadin markaa ku fac badanna waan leeyahay sidka waan leeyahay habeenkii marka dhakhtarada laakiin waxay ugu leedeen ma tiibay kugumaha iga candufad laga qaaday raajooyin laga qaaday marka xanuuno kale oo tiibayda u eg ama tiibayda ma la waayi ma la si kale loo baari karaa ma jirta marka calaamadaha TB-da kale hadaad barnaamijka bilowgiisii la socotay oo ah xumadii oo kale qofka oo miisaankiisa hoos u dhaco waxyaalahaas oo kale miyaad leedahay si dhakhtarku u ogaado wallahi xumad wallahi sidii wax duriyay oo kala noqonaya duriyay markasta hayo ilaa June marka waxaan kuu gudbinayaa Dr. Faadumo iyo Martin insha Allah si kaaga jawaabaan su'aashaada marka TV-ga kala soco السلام عليكم قفعا يحنون كنا سكر كسي مدلح بلود هدي أي دخاتير تكا بارين تيبي أي كوايين دمركا لو أنا جي لما أكني تيبي نقونيسو واي تيست كلا قاضو وا تيست very sensitive بس في عن بالو كلا يلا أوجان كلا قف كده تيبي كشركي سكجرو مركا وحن كو أرون لها إن أنت وحنا نقول لها وحكوا في عند دكتور كانت تكون نقطة علامات في عنو شاك يبارون ده. واي حديك كسالك وين علامته كلا أنا قفكو كلا إلا مو وضرت كمان مرة دكتور كلا تجين وقفكو كلا أنا وشيء بعلامته. absolutely ده علامات أنا واحد شرح عنونا كلا وده علامات هاسلة. لكن فربدين. يعني واحد ترمله. marka qofkii wada dhiig laga qaado oo test laga qaado oo la sii baaro mooyaan si loo ogaado iska yar markii makana dhakhtarkan u gudbinaysa Okay, yes, I mean yes there is. I mean it can still be tuberculosis and sometimes it's very hard to diagnose tuberculosis. But there's other diseases such as the disease called sarcoidosis. And different types of asthma that can make you cough and make you feel generally unwell. The important thing is just to keep attending her doctors and hopefully the diagnosis will become apparent as time goes on. TB-ga haday ku jirto mar wal ogaan marka wax inay ku noqnoqdo dhakhtarkeeda haday TB jirkeeda ku jira yani aanay ka daalin dhakhtarkeeda laakiin xanuuno kale xanuun leeyahay sarcoidosis baa jira ama xiiq qofka haduu asma qabo hadii shir qofkaas habeenkii qof aan ku badan habeenkii hadii jeer marka wuxuu yahay ka daalin dhakhtarkaaga ku noqnoqo ilaa ay deeg ku sheegaan xanuunkan ku hay wuxuu yahay marka asmado kale ama cudurka kale waxay cunaha qallayl noqonayo always inay wax cabo marka calaamadahaas oo kale ma yeelanayaan asma hada qofka markuu qufacay hadii shir qufac badan ayaa qofka qalajinaya qofka cunahiisa marka dhici karta marka insha Allah waxaan rajaynayaa caasha inaad su'aashaadii ka bogatay khadka telefoonka ayaa waxay inoogu jirta Khadra assalaamu calaykum Khadra ku soo dhawo barnaamijka TV-da soo daawalaala su'aashaada okay su'aasheedu waxa waaye habeenkii markaan seexdo dhidid badan aan sameeyaa lugahana aad ay karkaraan lugaha ku kululaada way kululaada haye dhididna waa isku arkaa oo tiro badan laakiin haddana ma qabo weelkaygana ma dhaco haye marka ma noqon kartaa marka adiga waxa weeyaan dhidid oo habeenkii markaad seexato ah iyo lugaha oo ku kululaanaya marka waxaad kala soo Faadumo waxaan ku gudbinayaa Dr. Faadumo iyo Martin si ay kaaga jawaabaan insha Allah marka TV kala soco inta waxaan oran lahaa haday isku aragto didid badan habeenkii lugahana xanuunayaan in dhakhtarkeeda u tagto advice-ka runtii dadka loo gudbinayo waxay tahay hadaad isku aragto calaamado aad shakido aad tiraahdo maybe xanuunkan baa ay haya waxba kuma yeelaysaa dhakhtarkaaga aad u tagtid aad tiraahdo calaamadahan baa ay haya adiga baari karta TB waayo qofkana wuxuu yahay qof ka yimi wadan imika Soomaali baan nahay Soomaalida waxay ka yimaadeen wadan ay TB ku badan tahay marka jirkeen hadaa la baarin marka laga yaabo majority-geena inay ku jiro TB-gan shifa ya ay qofka markuu ku soo baraarugo xanuunka noqdo TB-ga firfircoon anytime ay ku dhici kartaa waa qofkii markuu qaxo ama darxumo yeesho ama awoodiisa iska yara daciif yara dareemo markaas uu soo baraarugi kara marka waxaan ku advice lahaa dhakhtarkaaga u tag laakiin waxay leedahay calaamadahani ma noqon karaan calaamadaha TB-da maadaama dhidida iyo luguhuna ay gubanayaan laakiin waxay tiri miisaankayguna ma dhicin bay tiri xumadna ma lihi absolutely way noqon karaan laakiin way noqon karaan laakiin waayo sometimes calaamadaha hadda markiiba mar qura ma wada helaysid soo boodayaan waqti bay qaadan kartaa no it's possible but in ladies
certainly in ladies that are in middle age, it can mean it's changes in hormones. That's another possibility. Okay. So usually if you have TB, weight will be dropping off you as well as the sweats. And the sweats that you will feel, they'll be drenching sweats. So your nightdress will be wet and the pillows will be wet and the sheets will be wet. It's a very severe sweat, not just feeling hot. marka dhakhtarku wuxuu yiri way dhici kartaa inay calaamadan ka mid yihiin TB-ga laakiin hala ogaadna dumarka markay age gaaraan hadii jidhkooda isbedelaad baa ku dhaca oo kulayl age ka dhaxo kale markay noqdaan markaas kale wax caadi ah didka hawo yar caadi marka hadii jeer laakiin wuxuu yiri calaamadaha TB-ga waxa la socda miisaanka markuu qofka ka dhaco taas calaamad weyna calaamad weyna marka wuxuu yiri waxaan ogaado inay waxyaabo kale noqon karto didkan ay sheegayso habeenkiina did caadi ma aha kuleel yara dareemisid waxay noqonaysaa yani sariirtii baad ayaa qoyaan noqonaya yani waa sidii wax qoynaysa oo ka baxsan dharkaaga iyo qoyaana kugu dhigsan kaasa xanuuna taasa didka TB-ga ma kuleel yara dareemiso ma aha okay waxaan rajaynayaa inaad ka bogatay su'aashaadii إن شاء الله خدك تليفونك أيه وحين وجود شرط خضرة كسور دو برنامج كتير بيدا إن شاء الله سؤال هذا نسوي جود به. والله السلام عليكم السلام يا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما قد يكون يصبحني إنه هي ويلا وتمنشيرة أي حمام خنيجة بدعي. لا بكون يصدق يسوي مسجرة ولا لا. تمنشير بوها. أوكي. أبا يقول كا وحدا علي إلى دكتور كنتي بيجي كل ده أنكو بيني markaan fikrada dhakhtarada halka wadankan joogay TB hadduu xanuunkiina aanu baaray walaalay xanuunkiisa loo helay adag baayo markii dambe waxaan waa dhakhtar French ayaa lacag ka bixiyay halkiiba ay helay يعني markaad geysay dhaqaatiirta caadiga ah waxay kugu yiraahdeen ilmaha yar wuxuu ma hayso walaal ayaa ku heliyay dhakhtarkii familiga TB ilmihii markuu xanuunkiisa siyaada ونقياد ويا وحبوا كهيل وايد حتى راجع ومديريان والله والله كديرين هاي ولا فرنسي فبعد نختار برايفت انجليزي فرنش فرنسي ولما كويان كيبا ورالي دي نختاري ايام هلاي marka dhakhtarada waxa weydiisaa sideeba dad dhakhtar kan TB-gi ee xanuun kale loo heli kara hadana qofkeena wax aad buu u baaray marka walaalo calaamadaha aad ku aragtay markuu xanuunsanayo kale ay dhakhtaradu ku lahaayeen waxa ma hayso maxay ahayd calaamadaha aad ku arki jirtay aad kaga shakiday inuu inankaaga hayso TB anu horta runtii ma garanay laakiin waxaan hayay ilmaha walaal anuga inaan kala ii helo hasay ahaatay miisaanka dhacay dhididka xumadada qandhada waxa soo dhan ku arki jiray qufaca marka dee dhakhtaradii familiga iyo TB-gi ma helayaan hagaag buu ma baarayaan dad marka hadda madawadii buu qaatay oo uu dhameystay wuu bogsaday qaatay laakiin dhakhtaradii dee familiga hadii walaal xanuunkii aanu dadkii hagaag u baaray taasi laftakeeda dhakhtarada bal u sheegay maqlayaan waa hawl iyadoo meesha ku taal moogta waa dhib mushkilad weyn macaan marka su'aashaadu maxay tahay dhakhtaradu baan rabay inay ogaadaan dee in xanuunkii haddii aan la helin ama dhakhtarada TB-yaduna hagaag dadkii ayna u baarayin inay adag tahay يعني marka waxa weeyaan hadii qofkii oo xanuunkii haya dhakhtaradii ay marba intay baadhaan ay ku oranayaan waa negative waxba kuma hayaan sidee buu qofkaas oo kale u dawo ku heli karaa su'aasha Faadimo fahanto ma aha waxay leedahay in yarba 2000 iyo walaalo macaanay kala soco TV-ga jawaabtada insha Allah dhakhtaradaan u gudbinay hadii Ilaahay ka dhigo runtii point fiican bay samaysay gabadha waxay dad badan ka cabanayaan that's right marka imika magaalada joogna Birmingham waxa kamida waxyaabo inuu sameeyno waa training inuu siina GP-ga yani dhakhaatiirtan loo tagiyo waayo ayaga laftigooda magaalada aan joogna Birmingham waxa ku nool 1 milyan qof sanadkii waxa ku dhaca 400 oo qof TB yani wax common ah maalin kasta la arko ma aha iyaga laftigooda markay wax arkaan markiiba isku ma xirayaan calaamadahan iyo TB-ga xaafadaha qaarkood yes imaka xaafada ay ku badan yihiin Soomaalida oo kale Hindida oo kale Pakistanida oo kale yes waa waxa ay arkayaan laakiin hadaan uu dhakhtarka arko haduu dan xaafada gooni ay ku badan tahay cudurka TB oo kale dad gooni ah dadka ka yimid wadanka TB ku badan tahay qofka marka dhakhtarka haduu arkay dadkaasi hadii jar TB uu arkay uu garan calaamadaha laakiin taasi waa point la og yahay
ay marka NHS kan u shaqeeyo iyaga laftigooda training bay siiyeen GPs-ka si ay calaamadaha ay dala socdaan ay si fiican u baaraan laakiin waxa ka si fiican annaka laftigeena haddaynu nahay Soomaali annaga markaan ogaano calaamadaha haye haddii imika hooyada kale annagii baa oran karaa waxa u maleynaya TB inaan kan hayo oo TB iga baara waa TB ma xanuun markii iyaga maskaxda kaga dhacayso laakiin waa imika waxay leedahay hooyadu ilmihii yara uu dididayay wuxuu lahaa temperature wuxuu lahaa weight loss oo kale oo miisaankiisii oo dhacayay haddana markuu dhakhtarka tago waxa la lahaa waa negative ilaa ay private u qaadatay laga yaabo inaan loo test gareyn ma TB ay waxyaalo kale ka baariyeen laga yaabo waa testka markii uu soo saari lahaa haduu TB-na ka qabo laakiin waxa laga yaabaa in waxyaabo kale ka baariyeen aanay maskaxda kaga dhicin bad malayna kan waxa hayaba TB marka waxaan ku leeyahay dhakhaatiirta laftigooda training baa la siiyaa oo information si ay ogaadaan dadka ku dhacdo TB-ga ayaa loo gudbiyaa annakana haddaynu nahay dad caruur haysana ama dad Soomaaliyeed sideenaba markaan calaamadaha aan isku aragno ama caruurteena ku aragno annakii baa oran kara in ilmahan waxaad ka baadhaan xanuunka iga I'm very sorry about what happened to her son. That's not really acceptable. But these things do happen. And I think you were saying that people general practitioners don't always have TB at the front of their minds in Birmingham, and often the patients know before the GP knows. So I think if you're ever worried about a child, you must bring the child to casualty, to the A&E department, and keep bringing them, because you will be helped eventually. Don't ever take the child home and say, well, no one's going to help me, because someone will help you, and you shouldn't have to pay. And this service of diagnosing TB and management is completely free. No one should have to pay. dhakhtarka marka wuxuu ku jawaabay wuxuu yiri raale iga ahaw maaha inuu case-kan ku dhacdo inankaaga dhakhtarka inuu ogaaday ahayd inay TB-gana ka hayo laakiin wuxuu yiri waxaan kuuga advice lahaa hadduu GP-ga kula garan waayo xanuunkan dhakhtarka hospitaalka A&E-da umbal inaad caladuur u tagto aad ku noqnoqotid aakhirka wuxuu yiri waa lagu arki lahaa laakiin maaha inay sidaa qofka inay ku dhacdo ka daalo yiraahdo waxba leema qabanayo ma fiican lacag bixiyo absolutely maaha inay lacag ka baxdo waa wuxuu dawooyinka iyo treatmentka iyo dhakhaatiirta la darkayso oo bilaash marka maxad lacag ka bixinba marka wuxuu yiri raali iga noqo laakiin haddaad waxa soo kale ay dadka ku dhacaan ayniga ajartaga ayaga marka ku baaraya laakiin wax aad u dhacdo maaha inta badan dadka had iyo jeer marka lagu arko waxaan oo symptoms-ka calaamadahan oo dhan usually GP-gu iska garta wala gudbiya telefoonka khadka ayaan rabaa inaan qabto salaamu calaykum khadra ku soo dhawow barnaamijka TB-da su-aasha aad qabtana walaalo soo gudbee dhakhtarkan waxaa weydiin lahaa qofka oo adigu uu caato yahay oo cayilaynin TB-da inay ismaqayaan oo haddana markasta iska daalay يعني marka waa caato laakiin iskuma aragtid wax calaamado oo kale waana daashaa calaamadaha wuxuu sheegay dhakhtarka inuu daasho kamid marka daalka isku arkaa markasta daal bas miyaad isku aragtaa walaalo yani ma waxaad isku aragtaa daal bas iyo adigoo aan cayileyn ama yani caato caato oo weli qofkaas marka ma daalaysaa dhididkoo kale ma isku aragtaa يعني علامات كلام يسكو أركتها عن عاتة هين ما أنت أصلا بسكو أكاديمك إذا كفرها بدل مركز وحياة هذا قصة هاي وحن كوجد بينا ولا على دكتورك مركا إن شاء الله فاضمة يو دكتور ماتين إيجا كاجت شوابة مركا تي فيك كلا سو إن شاء الله waxaan ku advice lahaa inaanta inay dhakhtarkeeda u tagto way waxay ka cabatay in weyn caatatayna cayileyn haday tahay miisaan ka dhacay aanay u tala gelin ma weligay bay tiri caataan ahaa weligana caataan ahaa daalna waan leeyahay so marka inay xanuunka tahay maxay ka garan waa TV-ga xanuunkiisa yani miisaankan ka dhacaya way saas ilaa miisaanka ma dhicin laakiin weligay caataan ahaa waan daala so xanuunkaas jirkeyga ku jira mise waa uun علت كله تي وحنا نقول كرا anything أحكي كرا حنون قفك مركو ده سكعاتي هيدا شركة قاسك سداسة وحنا هذا بالعك بقول لك بحية إما كوحنا قاعد لنا ميسان كمركو قفك كدعو عاتدا قفك مركو شركة سكية هي قفك سكدوبان تحسي تيبي وحنا قلت الماما على بعض معها دالنا دال ده وحكيني كرا دوري باكيني كرا دال ها لا ما كوحنا قو أدفايسي لها حتى علامتها كلا وحسكو عرفتو جديد كوا كلا إيو
haddii iyada caatatay ay sii weydowdo ay miisaanka ka sii dhaco markaasaad oran karta waa TB marka in magaalooyinka Maatiin oo kale waxaan rabnaa inaan weydiino magaalada ugu badan cudurka TB-da marka UK joogno oo kale waa magaalade waa London baa number 1 waayo marka laga hadla xanuunkan TB-ga waxay ku dhacdaa dadka ay wadankoodu ku badan tahay xanuunkan sax dadka ka yimi Afrika dadka ka yimi Aasiya Hindida ha noqdaan Bengali Pakistani xitaa Ruushia maxay Yurub barigeeda TB way ku badan tahay marka meesha dadku ku badan yihiin ay TB-gana ku badan tahay waayo xanuunkan waxa ku badan xanuunkan waxay ku badan tahay marka wadanka Ingiriiska ku aragno horta magaaladan Birmingham waa number 2 number 1 waa London number 2 waa Birmingham number 2 Birmingham waa number 2 marka waxay ka imanaysaa xanuunkan labada nooc TB qaarna waa kala qaadayo waa TB-ga firfircoon laakiin waxay ku badan tahay dadkii oo la yimi marka maadaama labada magaalada dadku badan yihiin ajaanibka ah waxa keenaysa in cudurkii marka ku bato meelihii ay keenayeen oo kale because ayagii yani ayagoo waxa dhici karta qofkii caruura inay la kulmaan qof TB qaba adoo Soomaaliya iska jooga awoodaadii baa iska fiican waad iska caafimaad qabta jirkaagiiba marka qaranaya xijisanaya xanuunka marka TB chief uu noqonaya soo qaxday ma timi darxuma yara aragtay qabowgi dhaxamaha Ingiriiska yara aragtay markaasuu TB-ga soo baraarugaya marka TB badan baa sidaa ku timaada wadanka Ingiriiska maaha TB aad ka qaadaysid qofkii dadku ag jooga waa TB markii hore jirkaaga ku jiray talabaadna wada qofka TB-ga qofka markay ku soo baxdo isagii baa qaba marka TB-ga firfircoon marka isaga dadka kale u gudbinaya marka haddaad ku jirto guri yar oo ka yar oo aan hawo soo galin overcrowding markay noqoto si dhaxsi marka deel isku gudbinaysaa qofkii hadduu yahay marka la eego wadanka Ingiriiska 4 group ayay ku badantay TB-ga waa dadka family ama ku xiran qof TB-ga firfircoon qaba talabaad waa dadka marka la eego lifestyle kooda yani qofka khamri cab ama xashiishada isticmaala ama dariiqa seexada yani qofkii baa iska awood daran qofkii baa iska jilicsan health caafimaadkiisa noqonaya daciif ama xitaa qofka qaadka cuna hadii marka eegno naga community-geena hadii shar marka la qaadka la cunayo marfash baa la fariisanaya albaabadii baa la soo xirayaa daaqadii baa la xirayaa markaas hadee naqaskii meel ka baxda hawna meesha ma soo galayso marka iyo qofka haduu leeyahay xanuun marka Maatiin baa rabaa inaan weydiiyo su'aasha ah imika waxyaalaha chat-ka oo kale soo jeedka oo kale nafaqa la'aanta oo kale waxyaala drugs oo kale waxyaala ma tahay u sahli kara inuu cudurka TB-da qofku qaado kale yes so in the world there's about 2 billion people that have got TB asleep inside them and it doesn't usually wake up but if you drink a lot of alcohol, smoke a lot of khat and don't eat a proper diet, the TB is likely to wake up and if you're mixing with other people that do that you're also more likely to catch TB so it's a double problem. dhakhtarku wuxuu ku jawaabay yes qofka haduu khamriga ama drooga xashiishada ama qaadka cuno laga yaabo inuu jirkiisa TB-gi jiifay inuu soo baraarugo waa qofka noloshiisa iska nolol difficulty si fiican ma seexanayo nafaqadiisa iska yar haddana marka taasina wax lagu darayaa qofkii oo sida noloshiisu yahay iyo haddana umada kale dhexgelaya oo dadkana qaadsiinaya xanuunka markay ku soo baraarugto waxaan rabaa qofkii ugu dambeeyay barnaamijka maadaama waqtiga nagu yar daraadeed waxa khadka ku jirta ayaan salaam calaykum ku soo dhaw barnaamijka TB-da waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo makaanka oo kale ama guriga makaanka ku dhacda maxaa lagu gartaa calaamadaha ilmagaleenka inay TB-da ku dhacday in kale iyo maxaa calaamadaha lagu gartaa iyo calaamadaha lagu garto insha Allah marka waxaad kala soconaysaa TV-ga si aan dhaqaatiirtu ay su'aashaada kaaga jawaabaan insha Allah Okay, so TB of the uterus and the fallopian tubes is probably the commonest cause of infertility worldwide. TB of the womb, the symptoms you would get are fevers, sweating, weight loss and irregular menstruation. waayahay wuxuu yiri TB-ga yes way ku dhici kartaa makaanka TB-ga waana xanuunka marka eego
qofka dumarka marka aanay dhali kareen xanuunka ugu badan ku dhaca ay keento xanuunkaasi waa TB يعني infertility qofka markan uu ilmaha calosh makaan ku qaadi karayn TB baa ku dhaca TB ga xanuunka ugu badan ta laga helo qofka infertility ga lagu arko marka makaanka iyo tubes kaba bay ku dhici kartaa calaamadihiisana waa xumada inuu sheegnay waa diidka badan waana weight loss iyo dumarkana bishii markay isku arkaan caadada waxaana ahayn normal yani caadi isku ma arkaysa way kala lumaya marka waqtiga inagu soo dhamaaday daraadeed qof walba waxaan siinayaa 1 minute Martin adiga maxaad kula talin lahaydeen dadka qaba idin daawanaya ee TB-da qaba ama isu arkeen calaamado TB-do kale ay jirto Martin su'aashiisa si adiguna qof walba 1 minute waxa uu ku soo gabagabeynaya barnaamijka okay hadaba anu waxaan ku soo dhamaan laha sheekada waa TB yes waa xanuun khatar ah waa xanuun kala qaadi karo waa xanuun hadad garato calaamadaha dhakhtarka u tagto uu ku sheegi karo test baa jira laga soo qaadi karo oo si fiican loo ogaan karo xanuunkan uu qofka hayo hadaan lagaaga helinna ad laakiin shaki kugu jirto ha ka daalin dhakhtarka ku noqnoqo ogowna inay Soomaali hadaan nahay ay tahay xanuun ugu badan way wan la nime ceebna male taasa ugu muhiimsan way Soomaalida qudad ka qaban xanuunkan TB ga la yiraahdo way berigii hore dadkii quarantine waxa ما بلغ توري كذا قف كده نفط ما كبيح شرت وايد دوين بان شرين لكن وقت كان حاضر الحمد لله دوين كسف عم بوشقيان قف كي مركو تي بي شيء فصدح بلود بمركب وبابين يا حنونكي اكتف كنا وسنه وحكير لكن هادو قف كرشرح دوين كا عنو سفي عنو قادن تي او كسي دران jirkiisa baa la qabsanaya dawadii bakteeriyadii baa yara bartay wadana siisay marka xanuunkii si ka daran ay kugu soo noqonaysa marka waxa dhici karta sanad laba sanadood ay kugu qaadaan First of all, TB is completely curable. People mustn't be frightened about coming forward. It's a disease that if you suspect you've got it, you should come forward to a doctor. You'll get treated and you'll be cured and it's free. If you have a cough for more than 3 weeks, fever, night sweats, weight loss, these are all possible signs of TB and you should come forward and be seen by your doctor, get diagnosed, get treated and you will be cured. waayahay wuxuu yiri TB waa xanuun laga hortagi karo waana la daweyn karaa cudur ay tahay in laga baqan si fiican ma in laga baqdo qofka waxtan dhakhtarkiisa u tago haduu isku arko calaamadaha sheeganay qofac ka badan 3 week xumad didid fara badan habeenkii iyo miisaan markuu ka dhaco qofkiisi marka ma in laga baqdo waa bilaash dawoonkii baa bilaasha dawadan si fiican bay u shaqeynaysaa daawadayaal intaas waxaa noogu dhamaaday barnaamijkeennii maanta aynu kaga hadlaynay TB-da TB-du runtii sida dhakhaatiirtu inoo sheegeen waa cudur dawale oo aan qaadan karin yani waqti badan oo aan ahayn wax laga baqo inuu qof iska daweeyo ama hadii uu iska shakiyo cudurkan inuu hayo ama calaamadahan uu iska arko waa inaanu ka daalin dhakhtarka hadii uu xataa dhakhtarku ku yiraahdo negative baa inuu ku noqdo calaamadaha u sheego uusan isdhihin sida ay dad badan u arkaan cudurkan inuu yahay cudur hadii uu lagu ogaado oo kale ay tahay wax noloshiisa yani wuxuu dhimayo kale inaan ahayn tahay cudur wax lagu daweyn karo muddo aad u yar aynu u helay fursad dadkan jooga qurbahana ay u tahay lacag la'aanba in lagu daweeyo marka waxaan u mahad celinayaa Dr. Faadumo iyo Dr. Martin oo maanta inagala qaadanayay barnaamijka waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa daawadayaashii maanta nagala soo qayb galay ee su'aalaha u soo galeen iyo kuwii aanay u soo galin baan uga ka cudur daaranayno laynka oo busy ahaa darteed inay raali naga ahaadaan ku soo dhawaada mar labaad TV-geena caalamiga ee Somsad xaruntiisa magaalada Birmingham tan iyo intaynu hawada ku kulmi doono mar kale daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh